Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kusoo dhawaada mar kale channelkayga. Maanta waxaa ka hadli doonaa topic zaid u muhiim ah. Maxaa la dhahaa topickaas wuxuu ku saabsan yahay cabidda sigaarka ama sida la iskaga joojiyo cabidda sigaarka. Maalin hore ayaa waxaa qof isla soo raacnay train yara isnaqaan u ahaa marka dhawaanaan isma arkin. Soo u sheekaysanayna wuxuu u yirniyo waxa iska dhaafay maxaa la dhahaa cabitaanka sigaarka. markaas adayniyo bismillah si iskaga dhaaftin sigaarka zaid u jecel ninka sigaarka zaid u cabi jiray marka sheekaysanayna wuxuu u yiri markan inuu sigaarka cabitaankiisa dibka ugu weyn ugu hayo waxa ay u dhahay horta koodar caafimaadkayga ma wanaagsaneen mid kale wuxuu dhahay laba caruur ay joogtaniyo labada caruur ay joogta markay guriga sabtida axad oo kale la joogo ama banaanka aageeya la soo dheelmaago caruurta meelaha ku ordayaan abkaal nal dheel abnal orod kaal nal sameey ugu dhahayn yiri marka waxay ordaba caruurteedii ay orod badinaysa ama waa daalaya ama wadnaha ay xanuunay ama macnihi marka waxay ordaba neef zaid ay qabanayso marka mid ugu weyn wuxuu dhahay marka waxay ahayd caafimaadka laakiin mid labaad oo macnihi idibto wuxuu dhahay marka arko waalidiinta kale caruurtooda la ciyaaraya caruurtooda meesha dabaasha geynay la dabaalanaya anigana marka isku dayo macnihi ma ordi karay ma sameyn karay wixii midaas ayaa zaid ii dhiirigelisay u dhahay inaan iska dhaafo cabida sigaarka marka waxaa si weydiiyey sababta wuxuu sameeyey markuu iska dhaafayay qorshuhu uu sameeyey sidii uu iska joojiyey waxaas ayaa si weydiiyey marka waa u sheeganaa YouTube channel leeyahay uu ogaa awalka hore laakiin YouTube channel ka na sameeyey oo arrimaha bulshada iyo waxa ka hadla awalkii fitness ka soo ogaa markaas waxaa dhahaynayo story wanaagsan waa dadkina la qaybsadaan rabaa ii sheeg waxa sameeyay marka wuxuu leeyahay horta waxaa go'aansaday marka arrimahaas ogaaday waxaa go'aansaday inaa sidiis total iska dhaafo mar badan oo isku dayna iska joojiyo laakiin waa iska joojin kari waayay marka waxay cabo oo ku soo laabtaa marka hadda waxaa go'aansaday dhahay inaa iska joojiyo sababta ugu weyn ay dhiirigelisayna caruurteeda daraadeed ahayd marka hadda focus wanaagsan haystid oo wax ku dhiirigeliya haystid oo wax marka sigaar cabid ku laabmaatid ama wixina ku laabatid rabtid hadda haystid wax maskaxda ku haysid macnihi way adagtoo dhayna ku laabatid markaas dhahay caruurtaada hadeertaan marka waqtiga joojisay hadda farqiga u dhaxeeya maxaa isla dheeli kartaan oo ma ordi kartaan wuxuu dhahay hadda kubada xataa dheelaa u dhahay iska daayay caruurteedina la ordo kubadii ku laabto dhahay kubada dheelaa waa jimcsada hadda gymkina aad rabaa dad badan aa dhiirigelin iska dhaafaan marka wuxuu ku qalqaalay inuu YouTube channel samaysto asna macnihi dadku uu dhiirigeliyay sababtoo ah waxay adiga ku dhibtootay waa iska joojisay dad badan hadda dhalinyaro Soomaaliyeed waxaa jira ku dhibtoonay sigaarka inay iska daayaan rabaan laakiin aan joojin karin sababtan waxay tahay addicted ay ku noqdeen jirkoodii la qabsaday maxaa la dhahaa asxaabta ay la socdaan sigaar wada cabo marka wuxuu ugu weynaa wuxuu ugu dhahay asxaabtiis waa iska jaro dhahay dadkii xumaay la socon jiray waa iska jaray ma ku dhahay inaad asxaabta dhan jartid laakiin qofkaan wanaag kugu wadin wuxuu asxaab ku yahay mala Soomaa haddii macnaheedu aan wanaagina kugu saacideeyo aan asxaab u ahayn macnaha saaxiibtinimadana mid wanaagsan maaha marka wuxuu dhahay haddii aad rabtid inaad sigaar cabis joojisid ama wax xun aad joojisid waxaa koodar muhiim ah wax marka maskaxdaada ku soo dhaco wixii aad sameyn rabtid ka celinaya inaad haystid waa muhiim inaad ilaahay ka cabsatid ilaahay daraadiisa u joojisid sigaarka maxaa la dhahaa caafimaadkaaga daraadiisa u joojisid haddana dadku isku mid ma aha sababtoo ah ilaahay agteena uu ku weyn mar walba haddana shaydaan ugu xiriiro shaydaanku ugu xiriiro waxaa waa meel walba ka soo marayna macnihi wax xun aad samayso uu rabaa marka wuxuu dhahay isaga hadeertaan yaa dheereen videoga wuxuu dhahay wax dhiirigeliyay waa caruurteeda daraadeed iskaga dhaafay caruurteedina waqti la helaa rabaa caruurteeda la noolaado caruurteeda caafimaadkeega caruurteeda anficaysaa marka caruurteeda daraadeed iskaga dhaafay uu yiri ninkaas arkaysaan wuxuu haystay maxaa la dhahaa wax dhiirigeliya adna wax ku dhiirigeliya raadso hadda sigaarka ku dhibtoonaysid hadda wax kale ku dhibtoonaysid aadan caruur lahayn waxaa laga yaabaa inaa ilaahay dartiis iskaga dhaaftid oo masaajidka aad tagto culimo ku dhiirigeliso maxaa la dhahaa tabliiq baxdo kale maxaa la waqtigaas aad tabliiq ku maqan tahay aadan cabin sigaarka markaas soo laabatidna aad go'aan gaartid inaadan ku laaban sidoo kale sports bilaw sports ku ognahay marka sports badan dheeshid waxaa jirka wasakh badan ayaa ka baxayso dhiidkaas iyo wasakhdaas ka baxayso zaid ay ku anficaysaa dad hadda gymka waxa ku arkaa jimicsiga zaid u jecel laakiin sigaarka ayaa dhibaateynay
marka 5 daqiiqo train meel ku ordaan way daalayaan birta ma qaadi karaan sababtoo sigaarka waa naqaan video channelkay marka video ugu horeeyay channelka aan sameeyay waxa ka hadlay maxaa la dhahaa video reaction ku sameeyay sigaarka dhibaatada uu leeyahay insha Allah linkiga meelahan ayaa dhigi doona hadaad rabto daawan kartaa marka channelkeenan wuxuu sameeyay inaan is dhiirigelino maxaa la dhahaa dhalinyarada hadaan ahay wanaag isku dhiirigelino xumaanta iska reebno wixina anfacayna isku dhiirigelino so hada story noocyadaas oo kala haysid ila wadaag at least ana dadka kala la sii wadaaga YouTube-kayga ku xiran hada wadaan channelka ta ku cusubta wax la sameeyo taqaana subscribe like asxaabta gaarsi peace out